wala su'aal la dhaxaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan iisi hayn oo jina isbarataan qaabkeebad la xidhiidhin waxaan la qaabka ku riyoon lahaa su'aal la dhaxaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan iisi hayn oo jina isbarataan qaabkeebad la xidhiidhin lahaa واسمه ما هو جن اسكن نار لين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh my God! Wow! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواء سعدال تي في هديات كعصب تاي channel كان فضلا سبسكرايب در لايك تسار سينا شير قرأ سؤال أنا دحق ددوينا مقالة برعاية أورانيسا هديبا أي دعضو إنا تسبراتان قبل جن سيدي أيضا واحد للايد هديبا ددوينا كنو المقالة برعاية سؤاشن لا دحق عبد الرحمن كسر دواء سعدال وكله وسع سؤال أنا دحق ددوينا مقالة برعاية أورانيسا هديبا أي دعضو oo aad damacday inaad xidhiidh la samayso gabadh aan insi ahayn oo jin ah qaabkeebad ula hadli lahaa waa habeenkii baan u tagi lahaa meelaha mar la markay meelaha lagu soo warwareegidii yaa marka ay meelaha kule laga qaylinayaa waa qaylin dhex raacay anigu kule way soo baxaysaa yaa magacaaga محمد عبد محمود محمد كسر دواء سعدال تي وكله واي ولا سؤال لا دحق dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadh aan insi ahayn oo jin ah isbarataan qaabkeebad u shukaasan lahayd ama aad ula xidhiidhin كل anigu qaab ay iyadu sheegtay mooyee qaab anigu ay u sheegay wallahi ma gartay hadii ay dhacdana de waxa oran lahaa bal horta adigu deeya geesawa ya hadii ay daanay ma garanaysaa iyadu aan la geesa wadina de ma bay socotaa ma soconaysa wadi la anigu cilmigeedii ma garan maaye de marka waxa oran lahaa wallahi waxa oran lahaa bal adigu deeya tuji ليدا إيمان نقطة يادو ما كون لا تجي ها يادو ما تنتظر والسلام عليكم غني كسر دواء سعدال تي والله كدوي ولا سؤال لا دحق dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadh aan insi ahayn oo jin ah isbarataan sidaba ula xidhiidhi lahayd ama aad ula hadli lahayd gabadh insi oo aan jin ahayn gabadh aan insi ahayn laakiin jin ah walaal taanu lama hadleen boorta hadii ay dhacdo oo ilaahay bay tusaba qaabkeedu hadlayd qaabka iyadu ilaaha hadii uu ilaahay tusaba jinkuna wax la yiri yuumka iska haya adduunka magaraas tawo ka guri lahaa lacagta dunida wax isku dhacay adduunka ka guri lahaa hadii ilaahay tusaba ka dhabe lahaa yaado baasanto Umar baa dhawaan Umar ku soo dhaw socdaaltii waan ku dhawa wala su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan insi ahayn oo jinaad isbarataan qaabkeebad ula hadli lahayd jina yoo tijika ma la hadlaba hoos ila Allah hadasho wallahi wax loo sheego la garanayo shaydaanku bas kana arsa haday kuwa shaydaanku bas kana arsa kuwa kalena shaydaanku bas kana arsa laakiin jinka soo waa makhluuq wax ilaahay abuuray naga qarsan garanaysa marka waxaad ku tira garanaysa afgeeso bad kaga baxaysa waa salaam alaykum salaam ku soo dhaw socdaaltii waa ku dhawa wala su'aal la dhaxaadnay dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan insi ahayn oo jinaas barataan qaabkeebad ula xidhiidhi lahayd de waxaan ula xidhiidhi lahaa waxaan kula shaqayn lahaa qaabka sidii qaabka anigu insigu ma daqlo isticmaal lahaa de saas ma qolo isticmaal lahaa laakiin markaan ogaado de inaanay ahayn insi de qaabka jinka ma leegi lahayn wax ka garanayeen kale farsamo man degi lahayd insha Allah de marka diyaana ahayn de gabadhu aanay ahayn de insi marka qaabab kale ma ula hadlaa de adigu qaabab kale wixii sidii halkii sidii aan ka firsan waayo ma yeeli lahaa saan ka firsan waayo ma yeeli lahaa waayad ma asan wala saad wala saad ku soo dhaw socdaaltii wala dhawe wala su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo oo aad isbarataan gabadh aan insi ahayn oo jin ah sidaba ula xidhiidhi lahayd ama aad u shukaasan de waxaan ula xiriiri lahaa siyaabaha ay igu xidho shuruudaheedu buumaan kula de sida igu tiraha yeelo ma yeeli lahaa ha hadda tira xoor baan ka dhigay waan noqon lahaa de wasida
ma si kale ma sameeyeen haa aad u maadsantay ولا بستفاد عليه mustafa ku soo dhaw Socdaal TV ها كنت قاعد انتظر wala su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan iisi ahayn oo jinaad isbarataan qaabkeebeed ula xidhiidhi lahayd ama aad u shaqaansan lahayd تين هذا قبل اني سيهين وجينا sidaad ula xidhiidhayso xaaladiidas waa culusta marka waxa weeye aynu kala nabad galun bay ku wanaagsanaan te waxa waxa weeye hawsha u furimaysid waxa u furimaysid waxa weeye booska soo iga xidhiidhay madla te waka ha way aad maadsantay maxaad ii socotay maxamed ay ku soo dhaw Socdaal TV ku dhawaa wala su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan iisi ahayn oo jin ah dawacday inaad xidhiidh la samayso qaabkeebeed ula hadlaa gabadh jina bismillaahir rahmaanir rahiim gabadh jina qaabkeed ula hadlahay mid jina miya insi baahayn wallaahi taasi aan u shukaansado jawaabteeda maba hayaba mana haybsanayo wadnaansantiin magacayga kaysa cabdi cali ku magac dheer kaysa doob way kaysa doob ku soo dhaw Socdaal TV oo ku dhaw walaal wala su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan iisi ahayn oo jina isbarataan qaabkeebeed ula xidhiidhi waxaan la qaabka ku riyoon lahaa markaas leeyahay micnaha niyadan de gashan lahaan oo hurdo deenaawan dhowna waa kaade saasan sameyn lahaa may talaba kale uma qaadeen ya saasan ma sameyn lahaa aad maadsantay walaal magacay waxa la Ismaaciil Maxamed Musaan ku magac dheeray la yiraahdaa in casayna ku magac dheeray Ismaaciil ku soo dhaw Socdaal TV waan ku soo dhaweeyay su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan iisi ahayn oo jin aad isbarataan qaabkeebeed ula xidhiidhi lahayd su'aashan waxaan ula xidhiidhaa hadii ay qaab walba qaab loo xidhiidhu leeyahay taa jinkee anna qaabkeeda san ula xidhiidhi lahaa jinka ul waxaan ula hadlaa qaabkeeda jinka waxaan ka raadin lahayn meelaha laga raadiyo jinka oo ah hadda ku dahabada oo kale aan ka raadin lahayn ila jinku meel ku munaasib ah buu leeyahay meel caadiga ma lahayn marka halkaas ka raadin lahayn goobaha jinku ma ka raadin lahayn halkaas kala hadlahay aad maadsantay Cabdishibir Asmaan Abdulshiid ku soo dhaw Socdaal TV wadho walaalo su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadh aan insi ahayn oo jin ah aad isbarataan qaabkeebeed u shaqaasan lahayd ama aad ula hadli lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim taas waa min ayad jin caadiya hadii ay dhacdo sida u shaqaasan lahayd bismillaahir rahmaan horta daddiis jiniisi oo kala nahayd deena ilaahay isku wadana ma wada marin hadii ay dhici lahaydba de sida aadmiga loola sheekaysto ma loola sheekaysan lahaa haa waa jinku de isu waaf yaqaana moogta de isaga naaf yaqaana waaf ma af naqaante isaga naaf garanaya de ayar soo tan qof caadi iska ma soo dhigto de dadka arkun ba garanayaan uma arko leeyahay de saas ma loola sheekaysanayaan arka cali aad maadsantay wala waxa la dhahaa Xamse Ali Maxamed xamsi ku soo dhaw Socdaal waan ku dhaw walaal wala su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan insi ahayn oo jin aad isbarataan qaabkeebeed ula xidhiidhi lahayd ama aad shaqaansan lahayd de waxaan la xidhi lahaa kuwan jin baa iyadu de kuwa insigaan la xidhi ma la xidhi lahaa markaas seebad yani ula de qofku kuwa arki karayso walaal iyadaa ugu macaanee wallaahi bilaa iyadaa ugu macaano oo raaxo adoo aan guriba ahayn baad arkaysayo guri ku dhisan aad si gelaysaayo fadhiyaad uligaa arag bad si gelaysa waa arnaadani iyadaa ugu macaanbe annoo insiba dooni mayno jinkasan dooninaye haa wallaahi annoo jinkasan dooninaabe de haa habeen dheel waan ku qarwaaba anigu haa dee laakiin insigii aanu garamayn jinkasan doonayaaba anigu saaxib aad maadsantay Mukhtaar Yusuf ale mukhtaar ku soo dhaw Socdaal TV waan ku soo dhaweey walaal su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan insi ahayn oo jin aad isbarataan qaabkeebeed ula xidhiidhi lahayd oo isma ma hawajin te waxaan ula xidhiidhi lahayn shaydaanku ma isku naar lahayn a'uudu billaahi min ash-shaytaani salaad hore labti salaad ku soo dhaw Socdaal TV waan ku soo dhaweey wala su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan insi ahayn oo jin aad isbarataan qaabkeebeed ula hadli lahayd waxaad ula hadlaysaa marka hore jiniisa inuu hadla ma banaanaba jinku wax laga qariyo haday dhacdo waxaad ula hadlaysaa marka waa inaad saxroon noqoto taas ma ila taani aad maadsantay walaal magacaygu Yaasiin Cabdirasaaq ku soo dhaw Socdaal TV waa ku dhaw walaal wala su'aal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka oranaysa hadiiba ay dhacdo gabadhan insi ahayn oo jin aad isbarataan qaabkeebeed ula xidhiidhi lahayd gabar jina oo dad oo aan insi hayn walaal horta ilaahay nama tusay laakiin
dee gabadha jina iyadaaba kulley mar walba baray dheer tahay oo de waa ma garanaysaa kuwaas way naga dahsoon yihiin haddiiba ay dhacdo lacalla dee si wanaagsanoo ila waan iska ilaalinayaayo intaasay haddii doonta akhriya dirtaabe si wanaagsanoo mar walba wax allaali waxay tidhaahdo umbaan odhan lahaa haa waxaagaas unbaa soconaya saas weeye dee waxaanu la hadli lahaa kolley dee horta ilaa iminka ma fahansanine laakiin markaa iyadunba ii sheegi doonto oo sidaa ay igu tidhaahdo unbaa dee ula hadlaya sidaan isku maqli karayno unde haa aniga magacayga waxa la dhahaa cabdisalaan ducaale salaan ducaale ku soo dhawow Socdaal TV waa dhowey waa mahadsantahay walaal la dhex qaaday dadweynaha magaalada Burco wax ka odhanaysaa haddiiba ay dhacdo gabadhaan iisi ahayn oo jin ah aad isbarataan qaabkee bad ula xidhiidh lahay horta waa si wanaagsan gabadha insiga ahayna jinka ah aan isbarannay de waxaanu la xidhiidhi lahaa qaabkan isku barannay marka horeba qaabkaas baanu la xidhiidhi lahaa saasuma dee isku dee waan la sheekaysan lahaa caadi xidhiidh caadi aan la samayn lahaa haa waan guursan lahaa badde haddaan ka helaba haa